بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan inay u soo duceeyaan madaxweynaheeni Axmed Maxamed Silaanyo oo Abu Dhabi aad iyo aad ugu xanuunsaday imaka la mooday inuu ka soo reynayo dadna Ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad sareecana oo degdeg ah inuu Ilaahay siiyo waxa laakiin mucjiso ah oo la yaab leh oo reer Abu Dhabi oo dhamay la yaaban yihiin qoyskiisa xaaskiisa inay la joogto la garay xog hayntiisu inuu la joogo la garay wasiirka arrimaha dibadda inuu la joogay la garay laakiin waxa intaas oo wasiir inay maxaahad ugu yimaadaan oo ay Abu Dhabi hudaaladii ugu sareeyay ugu qaalisanaa ay ku galaan ay ku tamashleeyaan inay diyaaradda Fly Dubai ay business class iyo first class ay isku soo wada maxaahad xaadiriyaan lacagta ay sidaa ugu tamashleynayeen ay ku dhoofayaan waxa weeyaan cashuurtii masaakiinta laga ururiyay islaanta khudradda ku iibinaysa ee maciishadii cirka lagu geeyay ee sixir bararka lagu sameeyay ee caruurteedii waxa la waxay siisay la cashuurtii yareeda laga qaaday waa waxa Abu Dhabi iyo Dubai lagu tamashleeynayo ee hudaalada 7 star-ka ee ugu maxay ahayd qaalisan loogu jiro sabab alla sida loogu jira lama garanayo waxa mucjiso ah oo yaaba bishii 16 June baan halkan ka baxay Fly Dubai baan raacnay waxa Fly Dubai la socday madaxweynaha Axmed Maxamed Silaanyo iyo xaaskiisii wasiiradii maaliyadda Samsam iyo inanteedii iyo asxaabtood iyo qoysas kale oo ay wada guurayaan waaya bi fajarabi wadan ana maxay ahayd intaas oo qof tamashladooda qaadi karayn oo dadkooda uu baqtiyaya oo abaari ku dhacday oo sixir barar hayo oo cudurro maxay ahayd dad ay u dhinteen oo dawooyin ay waayeen ina la keeno inay ka haystaan caruurtoodii iyo qoysaskoodii iyo asxaabtoodii oo business class-kii Fly Dubai la isku wada shubo oo la raaco oo ay waxa soo dhamay ay hadana hudhaala doonayaan oo hudhaala ku degayaan oo hadana la doonayo inay wasiiradina ugu tagaan oo wasiiradina ay hudhaaladii ay galaan oo waxa soo dhamina ay tahay waa cashuurtii masaakiinta laga ururiyay waa nasiib darro inagu habsatay waa nasiib darro in haysa waa axmaqnimo iyo dad aan u naxayn dadkoodii iyo dalkoodii yaa looga tagay Somaliland intaasoo wasiir madaxweynaha naf kuma hayaan oo naf kuma qaban karaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka iyo xanuunka bahaya laakiin ay sidii malaka mowdka ay u dul taagnaadaan wax weeyaan waa mid ajiiba oo ummadii oo dham yaala yaabtay oo qof waliba isweydiinayay war Somaliland yaa looga yimi war Somaliland bal yaa looga yimi intaas oo wasiiro halka iskugu yimi waa mucjiso marka waxa leeyahay reer Somaliland maanta waxa maalin dhow bilaabmaysa kaad bixintii inuu qof waliba uu kaadhkiisa qaato oo uu maanta isbedel caafimaad qaba oo Ilaahay aynu weydiisanaynaa inuu caawid uu maxay ahayd raxmaanku ina siiyo isbedel wanaagsan oo maanta fartiina ku dooran kartaan kaadhkiina qaata isbedel doonta xisbi keeni karaya oo idin naxaya oo caruurtiina u naxaya oo mustaqbalkiina u naxaya oo shaqo idin abuuri oo idin ka saari doona maxay ahayd nasiib daradan inagu habsatay fartiina ku doorta kaadhkiina qaata wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh